Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusay 17 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ururka gobonnimadoonka ee SYL. Munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xubno ka kala socday labada gole ee dawladda, saraakiil, ciidanka baabayda iyo shacab wajiyadooda laga dheehan karay qiiro iyo wadaniyad. Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa ka hadlay munaasabadda isagoona ku dheeraaday ka sheekaynta waxqabadkii dhalinyaradii 13 ahayd ee aasaastay ururkaasi gaarsiiyay xornimada dalka ee SYL isagoona mid u xusay magacyadooda. waxaan u hambaliyaynayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba oo joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. waxaan leeyahay maalintiina farxadda leh ciid wanaagsan ku ciida. waxaan jeclaystay Xaaji Shukri wuxuu ka hadlay 13 leegada ama ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee aasaasay 3 magac oo ka soo qaaday isagoo waqtiga awgiis. waxaan jeclaystay inay mudan tahay inaan 13 magacyadooda halkan ka akhriyo si dhalinyaradeenna maanta joogta ay u xusuustaan magacyadii halyeeyadii geesiyadii xorriyadda dhaliyay. Abdulqaadir Sheekh Sakhaawuddin, Usmaan Geedi Raage, Maxamed Usmaan Barde, Dheere Xaaji Dheere, Khaliif Hudow Macallin, Xaaji Maxamed Xuseen, Yaasiin Xaaji Cusmaan, Siidi Nuur Xirsi, Maxamed Cali Nuur, Daahir Xaaji Cusmaan, علي مصلح بردورو، محمد فارح هلولة، محمد عبد الله حييسي. 13 وجي هلكا كم وقرا magacyada siraayeen iyagoo 13 oo ku dhex nool ajnabi talyaani ingiriis xoog leh oo ah boqortooyadii qoraxdu aanay u dhici jirin oo hub iyo cilmi iyo technology iyo wax walba ayay waxay haweysteen inay Soomaaliya xor ka dhigaan, Soomaaliya ay mid ka dhigaan, Soomaaliya ay dawlad iyo calan ayadu ay leedahay ay u yeelaan wayna ku guuleysteen. Xasan Kaaf Cabdiraxmaan, Puntland TV, Muqdisho.